بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسرائيل أو مركي ugu horeysa qiranaysa bijaradii xisbullah ay ku qarxiyeen number 1 iyo qaabka Xasan Nasrallah loo dilay in Netanyahu wuxuu kala kulmay arintaasi waan isdul taagi doona bidin Allah taala sidaas oo kale qofka xoog leh ama maalka leh mar walba inuu yahay kan taliya ama kan la ixtiraamo xataa Soomaali waxay dhahaan labada isla dhalatay midka maalka leh saan filaayo ayaa xoog badan miyaa mise ayaa la ixtiraama saas oo kale almuhim yani oo rasmi ah ayaan idin wada maanta Sacuudiga maxaad ku ogeedeen Iiraan markay timaado bal Sacuudiga oo Iiraan u ordaaya muxuu kala soo hadlay ama maxay u tageen waad la yaabi doontaane bal ila dhageystataan insha Allah taala u iimaanina amisa dhaam wixii ka dhacay oo la ogaa oo idaacadaha reer galbeedka saa ugu rafteen qaar kamid ana hadee aan dhihi karno in ilaaha ka hadal siiyay oo kadib laakiin xogaasi oga la laabtay ayaa hadana Paris laga baqay inuu ka dhaco khamiis soo socota laakiin Tel Aviv ama dhinaca Israa'iiliintan waxay ka digayaan arinta inay dhacdo dhinaca Parisna adiga waxay qaateen is-ilaalin iyo ciidamo 4,000 ah inay howlgeliyaan tan waan isdul taagana biidnillah taala hal mar aan ku bilowno hadda ayaa waxa dhacay Mareykanka ka dhacay 17 qof dhimasho ah jaamacad ayaa waxa lagu furay xabado si ashwaai ah marka arintaas hadda socota dhamaan yani dhimashada hadda waxa lagu tilmaamay 17 kaliya laakiin waxa laga yaabaa inay sii ziyaadaan maxaa yeelay ninkii ama qofka waxa geystay ee xabadaha wali waa baxsad oo jaamacadda area kamid ah ku jira ciidamo badan ayaa lagu soo daadiyay goobtaasi marka waan arkaynaa waxa kulay halka ka soo kordha biidnillah taala intaan barnaamij ku jirno okay hal mar aanu imaano Xasan Nasrallah soo u amray Netanyahu iyo bijarada iyo waxa u qarsan naftirkooda wuxuu leeyahay kulankii shalata dhacay xalad afwan dhacay ee marka ay kaga hadlayeen warbixinada dagaalada socda iyo sida loo gaashaamanayo iyo waxyaalaha loo baahan yahay ziyadada ay wixii la midka ayaa Netanyahu hadal cajiib oo la yaabay dabcan markii ugu horeysay qiraal ah oo ka sheegay waxa weeyaan wuxuu yiri ugu horeyn markaan amro yiri in bayjarada lagu qarxiyo xisbullah dhamaantiina iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dawladeeda way diideen ayagoo dhahay arintaasi wax badan ay fashili doontaa wax badan ay keenaysaa ugu falanqeynaan soo wadaa oo ay siyaasiyiin iyo indheer garad badan ay ka hadlayaan oo arintan ku saabsan maxay hadal ayaa arinta ku jira almuhim waad ka hor imaateen yiri markaad ka hor imaateen waataan sameynay guulay ahayd oo yiri ko sidaas oo kale Xasan Nasrallah oo aan ogeen intaasoo mudaba aan daba soconay meesha ku jiray wixii la midka ah waxa dhahdeen haddayaan la taaban jugaan gaarsiin haddayaan la taaban waan taabanay waan dilnay maxaa dhacay koor wuxuu yiri rafax hagalina maya masara xanaaqaysa adduunka kacaaya kada ayaa dhahaysay inuu yiri waan galnay maxaa dhacay wuxuu leeyahay marka Netanyahu yani soo isu dhigaayo aniga isoo raaca wax haba yaraatay idinka halaabaya malahan hadda isoo raacdaan aniga maxaa yeelay waxaan ogahay batomada la taabto kuwa kici kara oo balaayada kicin kara iyo kuwan kicin karin dadka noocan oo kale way jiifaan oo kale sidaas oo kale yani marka waad ka hor imaateen waan sameynay wax dhacayna ma lahan annagaana guul fadhina arinta hadalkan qiraalka ah siyaasiyiin badan ay kaga hadleen ay kala bixinaa waxay tahay Netanyahu wuxuu leeyahay ay u dhigan tahay dabcan hadaladiisa badan laga fahmayaa wax badan aan noo harsan oo dhagar ah aan xisbullah yani hadirtan ku sameyn karno oo waliba ka daran kuwii hadda ugu waa sida kuwii ka daran sidaas oo kale hadalkiisa waxa ku jira Netanyahu Xasan Nasrallah yani dhowr mar ayaan helnay oo aan awoodnay inaan dilno laakiin diidma adinka adiidan u deynay hadda hogaanka jira waa sida hadda uu hogaanka jira hadda ee xisbullah waxaan awood u leenahay dhamaan inaan leeyno laakiin hadda waxa taagantiin aad leedihiin maya yaan la taaban iyo wixii la midka marka waxa ay leeyihiin laba shay ayuu ka dhawaajiyay oo ah in arintii bayjarada wax ka khatarsan oo ka awood badan inay hadda hayaan oo ay ku sameyn karaan xisbullah ko iyo sidaas oo kale hogaanka xisbullah ay hadirtan inay leen karaan hadda macabsiin ba dadka qaarkiis waxay ku tilmaameen waa cabsiin dadka qaarkiisna waxay ku tilmaamayaan cabsiin ma maxaa yeelay bayjaradaasi la iskama qarxin haddii aynan wax kala haysanin sidaa darteed ay leeyihiin nacam hadaladan oo hadda ku hadlaayo waxa loo badinaa inay tahay hadallo run ah bal adinka sa idinla tahay sidaas oo kale in Nasrallah ay la socdeen oo ay muddooyin badan awoodeen inay dilaan laakiin ay iska daayeen ayagoo dabcan isku khilaafay arintaana sida idinla tahay marun mise fursad la helay ahayd sida dadka qaarkiis ay sheegeen ama sida cadeemaha qaarkiis ay sheegeen lagana faa'iideystay fursadii markiiba
intaasi waa intaa. anwaar online academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa anwaar academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid. anwaar online academy waa goob ku caana barashada diinta islaamka, barashada quraanka iyo culumta tajwiidka, barashada qiraa'aadka tobanka ah, tafsiirka, axaadiista, fiqiga, siirada, naxwaha, sarfiga iyo balaaqada, kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo carruurta. waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaa'izaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya. waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah. anwaar online kala xiriir Soomaaliya eber 252 615 22 eber 156. Kenyana kala xiriir eber 254 726 811 185. anwaar online academy. dugsiga casriga ee markaas sultan online waxaad ka baran kartaa xifdiga quraanka kariimka, higaada, luqadda carabiga, culumta shareecada iyo tarbiyada awlaada hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. wargelin muhiima ma jeceshahay waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan tegi karin xaramka barakaysan in loo gudo acmaasha cumrada? haddii aad daninayso waxaan kuu diyaarinay culimo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara kuwaasoo u gudaya cumrada waalidkaaga. inta lagu guda jiro gudashada acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday. haddaba fursadan qaaliga uga faa'iiday waalidkaaga. wixii faahfaahintaas dheeraad ah waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda ama naga soo wac eber 252 61 44 eber 5588. shirkadda At-Taqwa Hajj and Umrah waa hoyga rumaynta riyadaada xajka iyo cumrada adiga iyo waalidkaagaba. dhinaca kale waxaa weli goodinaya hogaanka sare ee Israa'iil asagoo dhahaya Xisbullah haddii waxyaalaha aan ka dalbayno oo ah inuu ka sikado meeshan dadkeenana aan soo dejino hadduunan ka tanaasulin oo aanan joojinin oonan ogolaan cafwan gudaha si toosan u galaynaa Lubnaan oo hogaan badan ayaan dilaynaa. macnaha waxyaalaha aan hayno hadalkiina tani ayaa dabcan uu xoojinaya waxyaalo badan oo aan hadda sameyn karno ayaan sameynaynaa. saas oo kale midna la tahay inta hadda ay sameeyeen Israa'iil ka badan inay sameyn karaan. maxaa waa su'aal weyn oo taagan la iskuna haayo. طيب aanu imaano arinta ugu yaabka badan barnaamijkeena. Sacuudiga ayaa sarkaalkeeda ugu sareeya ciidamada Sacuudiga dirtay. waxay u dirtay Iiraan. hadda hadalkan falanqeyntiisa socota. ma arki doonaa Sacuudiga oo laga amaano Iiraan, telefishinada Sacuudiga ah oo la soo istaago ilaa ay gaarto aniga hadalkayga ma hadal rag badan ay ku hadlayaan weeyaan ilaa ay gaarto in culimo xataa la isticmaalo oo aan aragno Iiraan oo la amaanayo. ilan Iiraan sida loo dhahayay ummadii oo dhan khaasatan sunniyiinta yacnihi baqdin waxaa la geliyay Iiraan la dhaho. bal qaarkood waxay gaarsiisan yihiin Israa'iil nooga dhow Iiraan. hadda waa sida ugu Iiraan iyo Israa'iil markay timaado Israa'iil noo dhow dad muslimiin oo dhahaya sunniyiin ah ayaa hadda halkan ku jira oo komentiyada qaarkood qoraya. waa sida in badan aragnay. dabcan arrintan waxay ka socotay telefishinada Carabta gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa arrintaas sameeyay. hadda marka xoogaa yar ada isbedel maadaama uu jiro ma laga yaabaa in dhinacan kale haddana aan aragno. maxaa dhacay marka? Sacuudiga ayaa waxay aadeen sarkaalkan ay u direen Tehraan. wuxuu kala soo hadlay dhigiisa Iiraan qeybaha difaaca iyo weerarka almuhim hub iyo adiga teknolojiyooyinka Iiraan ay haysato sida isaga kaashan lahaayeen Sacuudiyiinta. aan ku socoriyo Sacuudiga waxay Iiraan ka dalbaysaa ilaa Sacuudiga macnaha Mareykan ay wax gadanayeen oo dhinaca ay wax gadanayeen Soomaan daraad Iiraan arrin waxa lagu arkay marka la yaab leh oo aan la filayn. dad badan waxay isdhaayeen Iiraan iyo Israa'iil hadda isqabtaan Iiraan waa lagu sii doonaa kada. Iiraan waxa la arkay sawaariikh ayadoo gurigeeda jiifta intay jirto meelaha ay ugu tala gashaan ay ku dhacaan markii la soo weerarana ay xataa Israa'iiliyiintii Mareykanka ay qireen ay dhahaan difaaci Iiraan waxay haystaan caadi ahayn. macnaha weerarkii sidii la rabay uma dhicin. macnaha wax waan gaarsiinay laakiin nacam difaacyadooda aad iyo aad u adkaa oo ay iska keen dhiciyeen iyo wixii la midka ah. bal ka warrama arrintaa darteed waxaa la leeyahay marka in ay keentay Sacuudiga inay hadda isdhiibaan. Iiraan marka waa ixtiraameynaa. Iiraantii daciifka ahayd ee aan dhahaynay waa cadowgeena oo yani hadda hala burburiyo Mareykan oo aan isugu tagno hala meesha laga saaro ikada ma ahan. Iiraan waxaa la arkay inay awood leedahay sidaa darteed waa in la ixtiraamaa. Iiraanta la arkay waa tee midda awoodda leh. Israa'iil iyo Mareykan iyo oo dhan aamusisay maxaa yeelay weeraraday geysatay. ogow wada hadal ayaa Iiraan ilaa hadirtan hoose la leeyahay akhbaaraadka soo baxaya oo dhahaya please weerarnay joojiya. Israa'iil intaad ku samayseen waa aragna awoodiina ka daaya oo kale. hadalladaas socda. Sacuudiga marka hadda
inuu iiraantii ay sidaa isku ahaayeen ay weliba u diraan saraakiishooda ugu sarsaraysa ma ahan dhinac ganacsi la ma ahan dhinac nabadgeliyo marka heshiis iyo wixii midka la yani waxyaalaha iiraan ay haysataan rabaa in la soo qashto ama la dhaho macaawiya idinkana markiina yani hadda iiraan waa lala gorgortami karaa hadda iiraan waa lala heshiin karaa maxaa yeelay awood ay leedahay oo kale marka almuhim labada wada dhashay kii maal leh ayaa la ixtiraamaa mise xoog badan saas oo kale yani weyaan almuhim marka haddaad awood leedahay adduunka lacag leedahay waa lagu ixtiraamaya israa'iil ba intaas lagu ixtiraama haddana iiraan ayaa booskii soo gashay dhinaca kale haddaan aadno Tel Aviv waxaa dabcan ka dhacay amisalam aad ogtihiin si fiican ooga dheragsan tihiin khalalaase badan yaa bilaabay nacam waa la ogyahay qoladii israa'iiliinta ahaa ayaa bilaabay inay calamada Falastiin soo dejiyaan dadka qaarkiisa ay weeraraan iyo wixii la midka ah laakiin maxaa dabcan ay ka dheefeen in ayaga lagu waarsaday in ayaga dhulka lagu garaacay in ayaga la garaacay ay ka dheefeen dowladaha reer galbeedka warbaahinta reer galbeedka say u dhan yihiin ama ay u badan yihiin waxay u dhigeen arrintan waa yahuud nacayb ayagaa la ugaarsaday ayagaa la beegsaday cabsi wayaan hadda kahor arrintii lagu sameeyay haddana soo laabanaysa taariikhda arrinta arrin la yeelaya ma aan ikada wixii la midka ah hadda marka isbuucan aan ku jirno khamiista soo socota 14 bisha November waxaa dhacay ciyaar u dhaxaysa Israa'iiliyiinta iyo Faransiiska Faransa marka wuxuu leeyahay 4,000 ciidan ayaan deploy gareynay oo aan geynay meelaha dabcan ay ciyaaraha ka dhacayaan iyo Israa'iiliyiinta imaan doona yani tariinada iyo meelaha ay isticmaali doonaan ayaan geynay طيب 4,000 waxaa lagu xoojinayaa 1,600 oo staffka stadiumka gaar ahaan stadiumka wax ka dhacayaan inta oo dhan waxaa laga hortagayaa wixii dhacay inayna dhicin kow iyo sidaas oo kale in la difaaco qolooyinkan Israa'iiliyiinta yani arrinta isweydiinta leh oo tafaasiisha ka soo bixisa waxay tahay marka amisalam cidda weerarka samaysay waa ayaga maxaa ay Faransiiska arrintan u sameynayaan sabab maxay dabcan isaga dhigayaan dadaan waxba ogeyn oo la soconin oo yani ayaga la weeraray yani yahuuda la weeraray oo kale saas oo kale marka anaga hadda waan difaacina ikada waay inta badan waxa la leeyahay hadalada aad arkayso ficilkan Faransiiska ay sameynayaan ficilcelintu ah in Israa'iil ay dabcan ay samaysay jaahada boorar badan gudaha Israa'iil oo Tel Aviv aad ku arkaysaa xataa waxay samaysay yani wadamadan caasimadaha reer galbeedka qaar kamid ah boorarkaas oo ay ku sheegayso Yurub hal la xoreeyo Yurub xur ma ahan islaamkiga la wareegay nacab yahuuda Yurub hadirtan ku soo laabatay sida darteeda meel baan nagu arsanaa yani waxay bilowday qayli dhawaaq badan marka si loo dareensiyo Faransiiska sida la leeyahay weeyane loo dareensiyo nabada tihiin wax idin taaban kara ma lahan ayaa arrintan loo sameynaya dad saas ay leeyihiin dadka qaarkiisna waxay leeyahay waa iska adiga madaxweyneyn iyo kulay wixii la midka ah sayidina la taarintaasi sida dhinaca kale Israa'iiliintu waxay leeyihiin nacam in la aado oo ay ka qayb galaan Israa'iiliinta meeshaasi kooxda ha baxdo laakiin shacab badan oo Israa'iil yoonan bixin ha joogaan maxaa yeelay waxa dhici karta maadaama Faransa muslimiinta ugu badan Yurub ay joogaan wixii ka dhacay Amsterdam ka daran inay ku dhacaan oo bal ciyaartooyda loo baqayaa maxaa Faransa waa meel halis ah marka la fiiriyo Amsterdam oo ah yani Netherlands iyo Faransa awood badan xagga muslimiinta ay leeyihiin sidaa dadka ay ka baqayaan ay leeyihiin jooga fadlan ha aadin wixii la midka ah hal mar waxaan fiirinayaa intaan ku jirno aan ka bixin hadii lacala isxabadeyntii ama qofkii xabadeeyay jaamacadda ama xabadaha ka riday la habeelata wax kama soo kordhin kaliya waxaa jira in weli ninkii adiga lagu hareeraysan yahay laga yaabo dabcan inay dili doonaan sida u muuqata ama ay qaban doonaan laakiin in la dili doono badan tahay qorigii oo wataa weli intaas ku soo koob salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh dugsiga casriga ee markaas sultan online waxaad ka baran kartaa xifdiga quraanka kariimka higaada luqadda carabiga culumta shareecada iyo tarbiyada awlaada hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda anwaar online academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa anwaar academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid anwaar online academy waa goob ku caan ah barashada diinta islaamka barashada quraanka iyo culumta tajwiidka barashada qiraa'aadka tobanka ah tafsiirka axaadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo carruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaa'izaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah anwaar online kala xiriir Soomaaliya eber 252 655 22 eber 156 Kenyana kala xiriir eber 254 726 811 185 anwaar online academy wargelin muhiima ma jeceshahay waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan tegi karin xaramka barakeysan in loo gudo acmaasha cumrada
haddii aad danaynayso waxaan kuu diyaarinay culimo soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee Maka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara kuwaasoo u gudaya cumrada waalidkaaga. inta lagu guda jiro gudashada acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday. haddaba fursadan qaaliga uga faa'iiday waalidkaaga. wixii faahfaahintaas dheeraad ah waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda ama naga soo wac eber 252 61 44 eber 588. shirkadda At-Taqwa Hajj and Umrah waa hoyga rumaynta riyadaada xajka iyo cumrada adiga iyo waalidkaagaba.